wasiirka wasaaradda howlaha guud ee guryeynta dhammaan agaasimayaasha guud madaxda kale hay'adaha dawladda kala duwan iyo xubnaha ka socda hay'adaha ka soo qayb galay shirkan waa salaamantiin si guud marka laga hadlayo sectorka infrastructure-ka waa qaybaha ugu muhiimsan ee dhaqaalaha horumariya dhaqaalada leeyahay haddii aan kaabayaasha dhaqaaluhu aanay dhammaystirnayn horumarka dhaqaaluhu aad buu gaabiya waxaa inta badan laga qiyaas qaataa contributionka iyo inta ay sectorkani ay mar walba ku biiriso dhaqaalaha guud ee dalka markaa shirkan aad baan soo dhaweynayaa waa shir qiimihiisa leh inta hay-adood hadday tahay hay-ado dawladeed iyo hay-adaha kale maaragtay joogaba waxa ay noqonaysaa inaynu aada si weydiino sidaynu horumarinaa inagoo sidaa laynoo sheegay qorshaha qaran ee labaad ee horumarka somaliland ama NDP2 uu siiyey door aada iyo aada u weyn qaybtan kaabayaasha dhaqaale annaga wasaarad ahaan waxaanu ka soo gelaynaa qaybta technology-ga oo laba dhinac oo dhinacii isgaadhsiinta ah iyo dhinacii maaragtay technology-ga dhinaca isgaadhsiinta somaliland ilaahay wuxuu dejiyey goob muhiim ah bad leh berigana wadamo badan jaarnahay oo run ahaantii u noqon karta goob kaabayaal dhaqaale oo dhinaca technology-ga ah waxa weeyaan hoosgarayn karaysa si taa maaragtay loo dhaqaajiyo waxaad hore ogeydeen inay baarlamaanka somaliland wax ka bedeleen xeerkii la socday keebelada iyo wixii la halmaala waa dhammaan cid kasta oo danaynaysa waxay qayb ka noqonaysaa dhinaca maaragtay isgaadhsiinta iyo weliba xadhkaha iyo wixii la xidhiidha oo run ahaantii noqonaysaa in ay somaliland hab ama meel lagu soo hagaago noqon karta kaabayaasha farsamo ay uga horeeyaan xadhku wasaarad ahaan marka aragti ahaan waxaan aaminsanahay in taasi koowaad noqon karto sidoo kale kaabayaasha dhaqaalaha markaan ka hadlayno waxna xagga dawladda ka yimaadaan waxna waxay ka imanayaan dhinaca private-ka ama xagga ganacsatada taana kolley wixii technology ay dhammaan la fududeeyo hadday noqoto xagga regulationska iyo hadday noqoto siyaasadaha iyo standardska lagu maamulayo waxa way kaabayaasha dhaqaale ee technology-ga dawladda laftigeedu si ay qayb uga noqoto horumarka wasaaraddu waxay in badan ka shaqaysay isla diyaarnoota in la wadaagto in laamaha dawladda ay noqdaan qaar technology-ga uga faa'iideysta sida ugu badan ee suurtagala taana kale waa mashruuca e-government u bixinay ee socdo kale idinkuna qayb badan aad ka soo geli doontaan dhammaantiin mar haddaynu isku hal dhinac nahay dhanka kale technology-gu mar walba waxay fududaysaa tooliska wax lagu hormariyo waxaan odhan karnaa technology-gu waa enabler waxaan ka hadlaynaa infrastructure tusaale ahaan imika waddooyinka oo kale marka in badan la adeegsado technology-ga hadday noqoto xagga daatada iyo hadday noqoto hardware ama software waxaa fududaanaysaa in maaragtay horumarkii la waday uu maaragtay uu hore u socdo hay-adaha kale oo dhanna waa la mid hadday noqoto dhinaca qorsheynta hadday noqoto hay-adaha kale jooga marka technology-gu marna waa iyada laftigeedaa sameynaysa horumarka marna waxay fududeynaysaa horumarkii ay dhinacyada kala wadeen marka kolley diyaar baan nahay haddaan wasaarad nahay wasaaradda haddaan nahay isgaadhsiinta iyo technology-ga waxaanan aada u aaminsannahay in waxaa jira qaybo fara badan oo dhaqaalaha laakiin qaybta infrastructure-keenu maanta joogno ama kaabayaasha dhaqaalean joogno inay door weyn ku leedahay dhaqaalaha
una maaragtay qiimaheeduna uu aad iyo aad maaragtay uu muhiim u yahay horumarka laga hadlayaana mar walba waxa weeye waa inta kaabayaal dhaqaaleynu hayno marka shirkan aad iyo aad baan soo dhaweynayaa wasaaradda soo qabanqaabisay iyo dhammaan cid kastoo ka soo qayb gashan waxaan leenahay aad baad ugu mahadsantihiin waana salaamantihiin